iyadoo xaalad biyo-la'aaneed ka jirta guud ahaan deegaanada Soomaalida ayaa Dahabshiil Foundation koob iyo konton booyadood oo biyo gaarsiisay magaalada Buuhoodle iyo deegaanada ku xeeran. Biyahan ayaa loo qaybin doonaa xaafadaha iyo deegaanada ku xeeran magaalada. Waxaana ugu horeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha Dahabshiil Bank Buuhoodle Ismaaciil Ciise Ducaale. maanta waxaan joognaa degmada Buuhoodle gobolka Cayn. waxaan halkan u taaganahay saad la socotaan shirkadda Dahabshiil Group qaybteeda Dahabshiil Charity Foundation waxay ugu deeqday geeyiga Soomaalidu degto ee geeska Afrika oo dhan 4000 oo booyadood oo biyo ah taas oo ay kala qayb qaadanayso ama dareenkeeda ku muujinayso dhibta iyo abaaraha soo wajahday ummadda Soomaaliyeed meel kastoo ay ka degto geeska Afrika taas oo maaragtay muddooyinkii ugu dambeeyay la qaybinayay gobolka Cayn degmadiisa Buuhoodle waxay qoondo u heshay koob iyo konton booyadood taas oo maaragtay la gaarsiinayo deegaamada gobolka hoos yimaado oo dhan waxaan hawsha ku wareejinay anigoo ah maamulihii Dahabshiil Group gudida gobolka Cayn oo halkan taagan iyaguna hawshoodii gutay halkana maanta ee ka ambabaxayaan booyadihii annagoo liiskoodii hayna deegaan walbana ay gaari doonaan wixii loo qoondeeyay arrintan waxay qayb ka tahay dareenka iyo maaragtay ixsaanfalka uu samaynayo maamulaha Maxamed Siciid Ducaale ee ah gudoomiyaha shirkadda Dahabshiil Group taas oo ah ummadda wixii laga dheefo marka dhibaatooyin ku yimaadaan in dib loogu celiyo ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan uga baryaynaa muxsinkaas inuu miisaanka xasanaadka maaragtay ugu daro markii hore shirkaddu sadaqaadka maysan lahayn laanu madax bannaan laakiin hadda laga bilaabo waxaa loo sameeyaa xafiis gaara oo maaragtay arrintaa tawalinaya ma aha markii ugu horreysay oo ka deegaan ahaan shirkadda Dahabshiil Group ee ka qayb qaadato waxay bixisaa waxyaalo joogto ah waxyaalo markii culaysay yimaadaan ee ka qayb qaadato haddana waxaan rajaynaynaa sidoo hore si ka firfircoon inaan maaragtay deegaanka uga falgalno aad baan maaragtay inagu mahadcelinaynaa annagoo ku sugan degmada Buuhoodle gobolka Cayn maantana taariikhdu ay tahay 17 Maarch 2022 oo aanu ka gudoonnay Dahabshiil Charity Foundation oo uu nala joogo maamulihii Dahabshiil Group ee Buuhoodle waxaanu halkan ku gudoonnay haddii aanu nahay gudidii taakulaynta abaaraha deeq biyaa oo ayna soo gaadhsiiyey maamuluhuna soo gaadhsiiyey oo aanu ka gudoonnay Dahabshiil Charity Foundation oo koob iyo konton booyadooda oo loogu talagalay dadkan ooman in lagu waraabiyo kuwaasoo aanu gaadhsiinay 30 magaalo lagu waraabinaya haddii aan laydmo liiskoodiina horey aanu u gudbinnay haddana halkan aanu ka shaacinayno aanuna kula wareegayno oo ku gudoomanayno haddaannu guddida nahay in magaalooyinka biyaha insha Allahu ta'ala la gaadhsiinayo magaalo walba wixii loo qoondeeyay tiradii koob iyo kontonka booyadood inaannu gaadhsiino aad iyo aad ayaannu ugu mahadcelinaynaa Dahabshiil Group ama madaxiisa Maxamed Siciid aad iyo aad buu mahadsan yahay iyo Dahabshiil Charity Foundation oo iyagu hawshan si gaar ah uga shaqaynaya sadaqada ee lagu waraabinayo dadka ooman aad iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahina subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo xoolaha meesha aad laga soo bixiyeyna meel wax ka baraka badan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ha ku bedelo waxaanu kaloo idin xusuusinaynaa deegaanku waa deegaan aad u ballaaran jilaalkuna aad u adag yahay in haddii allaydmo laga warhayo oo sidaa iminkaba loo waraabiyey waxa weeye haddii ilaahay subxaanahu wa ta'aala waa weydiisanaynaa inuu inaga soo jabiye in laga warhayo deegaanka dhulka hadda ugu adag ayuu ka mid yahay walow uu jiro deegaano ka darani haddana waxaannu idin leenahay ha laga warhayo dadka ilaahayna subxaanahu wa ta'aala ha idin barakeeyo